kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa barteen YouTube-ka ee National TV qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid ah magaalada Boosaaso oo weli la isku marilayahay iyo xiisadda Puntland iyo BSF-ta oo dib u soo cusboonaatay dagaal ka dhacay magaalada Boosaaso iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaaladaasi ayaan idin hayaa gudoomiye hore ee golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo si adag uga hadlay khilaafka farmaajo iyo Rooble waxa uu na dhaliilay labada dhinac ciidamada dawladda Soomaaliyeena waxa ay xalay weerareen guri Muqdisho ku yaala oo lagu beero daroogada iyadoo magaalada Muqdisho saacadii la soo dhaafay ay ka dhaceen dilal qorsheysan wararka caalamka waxaan idin hayaa shacab lagu xasuuqay dalka Itoobiya kadib duqeymo la beegsaday dadka la xasuuqay waxa ku jira caruur iyo sidoo kale amiirad u dhalatay dalka Sacuudiga oo muddo kadib xoriyadeedii dib u heshay wararkaasi oo dhan ayaan idin hayaa waa Axad 9 bisha January sanadka 2022 u diyaar garooba saaxiibayaal qodobadaasi oo faahfaahsan markale kulan wacan aan ku bilaabo warkeena wararkan ka helayno magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in weli magaaladaasi ay ka taagan tahay khilaafka u dhaxeeya maamulka Puntland iyo ciidanka BSF-ta wararka ayaa intaasi ku daraya in shalay galinkii dambe ay magaalada Boosaaso ku dagaalameen ciidanka amniga Puntland iyo kuwa BSF-ta ee taabacsan agaasimihii hore ee hay'adaasi Maxamuud Cusmaan Diyaano israsaasaynta oo socotay muddo kooban ayaa ka dhacday agagaarka xirada Cawska oo ku taalo Boosaaso sida uu shaaciyay taliska booliska wararka waxay sidoo kale sheegayaan in dagaalka uu dhexmaray ciidamo uu watay agaasimaha magacaaban ee BSF-ta sareeyo guuto Maxamed Amiin iyo kuwa taabacsan agaasimihii hore taliyaha qaybta booliska gobolka Bari ee dowlad goboleedka Puntland gaashaanle sare Cabduqaadir Jaamac Dirir ayaa ka warbixiyay dhacdadaasi wuxuuna xaqiijiyay in iska hor imaadka uu ku dhintay hal askari mid kalena uu dhaawac soo gaaray Dirir ayaa sidoo kale shaaciyay in la baarayo sida ay wax u dhaceen isaga oo tilmaamay in cidda bilowday dagaalka ay qaadi doonto mas'uuliyadda xaaladda ayaa haatan degan wuxuuna dagaalkan ku soo aaday xil uu horay madaxweynaha Puntland Siciidina ugu baaqay xabajoojin ka dhaqan gasho Boosaaso si nabad loogu soo dabaalo magaaladaasi si kastaba waxa weli socda dadaalo ay wadaan mas'uuliyiin horay xilal uga soo qabtay Puntland iyo waxgaradka deegaanka kuwaasi oo lagu soo afjarayo xiisadda Puntland iyo agaasimihii hay'adda BSF-ta Maxamuud Cusmaan Diyaano oo xilkaasi laga qaaday balse diiday waa hagaag gudoomiye hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ka hadlay khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble ayaa aad u dhaliilay labada mas'uul isaga oo sheegay in waxa ay ku doodayaan aysan muhiim ahayn xiligan xaaladda maanta dalka ka jirta lagama aamusi karo weligeedna Soomaaliya soo marin tan oo kale weligeedna nama soo marin madaxweyne xafiiska iska jooga ku dhawaad sanad ayuu yiri Professor Jawaari oo shir jaraa'id qabtay gudoomiye Jawaari ayaa aad ugu dhaliilay madaxda Soomaalida gaar ahaan kuwa hadda joogta in aysan ku dhaqmin dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka qof kasta sida uu rabo ayuu u sheegtaa dastuurka xishoodkii iyo dhaqankii waa laga tagay waxaasna dawladnimo ma aha ayuu yiri Jawaari sidoo kale wuxuu sheegay in madaxda ku shiraysa magaalada Muqdisho ay isku dan yihiin oo mid kasta uu doonayo sidii xildhibaanka uu doono u soo saaran lahaa dhinac kasta waxa uu raadinayo waa baadil waxa loo baahan yahay tanaasul ayuu hadalkiisa ku yiri Jawaari waxa uu sheegay in hogaaminta baarlamaanka dalka loo doortay 2 jeer intii aan hayay xilkii ugu dambeeyay anigoo haysta taageero igu filan ayaa waxa si xun oo khayr caadi ah ila dhaqmay laanta fulinta markii aan fiiriyay danta guud waxa ii soo baxday inaan shacabka u tanaasulo Professor Jawaari ayaa sheegay in mas'uuliyadda amniga iyo waxyaabahan la isku haysto ay ku kala cad yihiin dastuurka dalka kaasi oo sida muuqata aan hadda lagu dhaqmin isaga oo sidoo kale sheegay in madaxda ku shirsan Muqdisho ee golaha wadatashiga qaran aysan muhiim ahayn in xiligan ay ka doodaan arinta amniga oo uu sheegay inuu mas'uul ka yahay madaxweynaha qaranka weli baahinta wararkeena ayaan ku jirnaa faahfaahino ayaa ka soo baxaya dilal ka dhacay magaalada Muqdisho saacadihii la soo dhaafay iyadoo mas'uuliyadda dilalkaasi ay sheegteen kooxda Al-Shabaab weerarka koowaad ayaa ka dhacay degmada Warta Nabadda waxaana lagu dilay Ismaaciil Maxamed Aadan sida ay shaacisay kooxda Al-Shabaab marxuumka ayay kooxdu sheegtay inuu ka tirsanaa ergadii wax ka soo xushay xildhibaanada baarlamaanka 10aad ee dalka waxaana toogasho ku dilay rag ka tirsan shabaab oo dhacdada kadib isaga baxsaday halkaasi
wararku waxay intaa ku darayaan in goobta ay goor dambe gaareen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo sameeyey baaritaano kooban balse ma jirto cid ay u soo qabteen falkaasi. dhinaca kale shabaab ayaa sheegatay in dil kale oo loo geystay sarkaal ciidan ay ka fulisay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho. kooxda shabaab ma shaacin magaca sarkaalkaasi balse waxa ay sheegtay in xubnaha dilay ay horay uga qaateen hubkii uu watay sida ay hadalka u dhigtay. weli ma jiro wax faahfaahin oo ka soo baxay dhinaca dawladda oo ku aadan dilalkaasi siyaabaha kala duwan u dhacay ee ay sheegatay mas'uuliyadda kooxda al-shabaab. wararka Muqdisho intaan ka bixin, ciidamada booliska saldhigga degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir ayaa howlgalo ay ka sameeyeen xaafadda Tokyo ee degmadaasi waxa ay ku soo qabteen waxyaabaha maanka dooriya iyo dad la sheegay inay ka ganacsan jireen. taliyaha saldhigga booliska Howlwadaag Najiib Cabdi ayaa warbaahinta dawladda u sheegay in ciidamadu ay howlgal qorsheysan ku fashiliyeen guri lagu dhexbeeri jiray maandooriyaha xashiishka loo yaqaano. sidoo kale muuqaalo laga soo duubay gurigaasi ayaa muujinaya fuustooyin lagu qasi jiray maandooriyaha calaqa oo ciidanku ay gacanta ku dhigeen. taliye Najiib ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan dadkii beertay ee ka ganacsan jiray maandooriyahaasi. sidoo kale xogta lagu fashiliyay shabakadan ayuu sheegay inay ka heleen dadka deegaanka. taliyaha ayaa aad ugu mahadceliyay dadweynaha ku nool degmada Howlwadaag gaar ahaan xaafadaasi lagu qabtay muqaadaraadka. waxa uu sheegay in dariska gurigaasi ay fashiliyeen maandooriyihii lagu diyaarin jiray halkaasi. waa tahay qaybihii ugu dambeeyay ee warkeena ayaan soo gaarnay. shaqaalaha gargaarka ee ku sugan wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in 56 qof lagu dilay duqeyn dhanka cirka ah oo ka dhacday xero ay ku nool yihiin dad barakacay oo ku taal gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi. ma jirto cid si madax banaan u xaqiijin karta weerarka ka dhacay dhisme iskuul oo ku yaala xerada Dedebit. hase yeeshee sawirada lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya dad rayid ah oo dhaawac ah oo lagu dabiibayo isbitaallo. ciidamada dawladda ayaa mucaaradka kula dagaalamayay Tigray. dawladda kama aysan hadlin weerarkaasi. dhanka kale iyadoo isku dhacyada u dhaxeeyay ciidamada Itoobiya iyo isbahaysiga mucaaradka oo ay horkacayaan kuwa Tigray uu si kumeel gaar ah u istaagay ayaa haddana waxa weli sii socda duqeymaha cirka ee lagu beegsanayo goobaha ay falaagada ku sugan yihiin. shaqaale gargaar oo aan magacooda la shaacin ayaa soo bandhigay sawirada dad dhaawac ah oo isbitaalka jooga oo ay ku jiraan tiro caruur ah. jimcihii dawladda ayaa ku dhawaaqday inay sii daysay dhowr siyaasiyiin caan ah oo ay ka mid yihiin hogaamiyaasha kooxda TPLF. ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in tallaabadaasi looga gol leeyahay in la gaaro dib u heshiisiin qaran laguna hormariyo midnimo qaran. ugu dambeyn, amiirad u dhalatay Sacuudiga iyo gabadheeda ayaa xoriyadooda dib u helay kadib ku dhawaad 3 sano oo ay ku xirnaayeen xabsi si weyn loo ilaaliyo isla markaana wax dacwad ah lagu soo oogin sida ay sheegeen dad u ololeynayay in la sii daayo. amiirad Basma bintu Sacuud ayaa la xiray bishii Maaj sanadkii 2019 xilli ay qorsheenaysay inay u duusho dhinaca dalka Switzerland halkaas oo xaalad caafimaad ay u tageysay. lama oga sababta loo xiray iyada iyo gabadheeda wax dacwad ahna laguma soo oogin. dadka waxay sheegeen in xiritaankooda uu la xiriiro u doodista arrimaha xuquuqul insaanka. halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen barteen YouTube-ka ee National TV. intaan ku kulmeyno wararkeena soo socda nabadgelyo.